ومقال soo baxay 8 November 1902 bil kadib markuu dhacay dagaalkii weynaa ee loo yaqaanay Beerdhiga ee ka dhacay gobolka Mudug Xudayo. Dabcan dagaalkaas sidoo kale waxaa gaaladu u yaqaaneen The Battle of Erego. Gaalada dagaalkan waxa ka soo gaadhay jab weyn, inkastoo buugaagta Ingiriiska iyo waxay ku qorayaan ay ka duwan yihiin waxa maqaaladanu ay sheegayaan, iyadoo ku tusinaysa sida ay markaa ay uga eexanayeen xaqiiqada iyo daraawishtaba. dagaalkan markuu dhacay Captain Swain ninkii ciidanka hogaaminayay oo markaa cararay oo buuhoodle orod ku tagay, walow ay buugtu u xilqariyaan oo ay dhaheen buuhoodle wuxuu tagay xilad maadaama complications ay jireen iyo magaranayay cilado farsamo ay jireen, xaggaasuu u tagay iyadoo biyo la'aan ay xaggan ka jirtay, xaggaa iyo buuhoodlu aaday oo ciidanka u qaaday isagoo magaranayay garawsaday inuusan mudug daraawish dagaal kale kula sii joogi karin, sidoo kale dagaal kale uusan la geli karin daraawiishta oo maadaama ciidamadii Soomaalida ee markaa iyaga hagayay aan la isku halayn karin oo ah kuwa magaranayay cararaya. si kastaba ha ahaatee muuqaalkan wuxuu sheegayaa inay markay buuhoodle uu tagay ninkaasu uu dalbaday gurmad degdeg ah. ciidanka Ingiriisku waxay guuto koobaad oo ka kooban 270 ka soo direen Cadan oo ah ciidan Hindiya oo berbera ku soo degayay kadibna buuhoodle xagga u sii gudbayay. sidoo kale waxa isna la soo diriyay guuto 100 nin ka kooban oo guuto saddexaad ahayd oo markaa Suudaaniya iyo Suudaani kale oo markaa iyagana 100 nin ahayd oo guuto shanaad ahayd oo markaa wadatay hal machine gun. dabcan labada guuto waxay wateen ilaa 3 machine gun oo maximka waxa iyaguna jirtay oo bisha December dhamaadkeeda maadaama maqaalkan la qoray November bishii November 8 la qoray ilaa bisha December dhamaadkeeda waxa imaanaya laba guuto oo kala ah 300 oo askari oo guuto labaad ah iyo 390 askari kale oo dheeraad oo guuto sheegay saddexaad oo markaa King African Rifles ah oo iyaguna wata machine gun kale oo markaa ciidankaas waxay ku sii biirayaan ciidankan buuhoodle u soo cararay oo markaa ka hadhay ciidankii hore ee dhowrka kunka ahaa oo markaa 800 oo askari oo markaa hore buuhoodle u joogay oo markaa dhaawac badan uu ku jiray oo buuhoodle lagu daweynayay. dabcan sidoo kale Ingiriisku wuxuu wacay ciidan hore u joogi jiray gobolada waqooyi oo markaa Ingiriisku ay dib u qaadeen oo markaa dib loo soo celinayo oo markab kala dhaho HMS Hardinge oo markab kale uu ciidankan ka soo qaaday Hindiya Bombay oo ilaa 400 oo askari ka kooban. dabcan markabkan waa markabka HMS Hardinge oo markaa markana badda cas patrol ka sameynaya. markabka ayaa wuxuu magaranayay ciidankaasna lagu dalbay. sidoo kale waxa iyana magaranayay jirtay markii Swain uu cararay xaggan iyo buuhoodle war ka daba tagay oo sheegay ciidamo la weysanaa 20 kamid in geeri loogu xaqiijiyay oo markaa ay ciidankaas ay dhinteen maadaama uu ciidanka isagu ka cararay oo markaa ciidanka warkaas ka daba tagay markuu buuhoodle tagay oo loo sheegay in ciidankaas ay geeri yihiin. ciidankan u imaanaya oo markaa iyo ciidankii hore joogay oo totalkeedu noqonayo 3500 oo ajaaniba iyo 1500 oo askar horgalaaya, totalkeedu noqonayo 5000 ayaa buuhoodle isku habar wacday. dabcan ciidankan waxa weeye iyagana saraakiil kale oo markaa laga keenay South Africa, Khartoum, Sudan, Uganda, Kenya iyo sidoo kale Central African Republic oo markaa Swain la hoos geynayo Captain Swain. dabcan askartan waa askar saraakiil cusub oo Ingiriisku dalbaday markii ay ku fashilmeen oo jab weyn hoogi halaag kaga dhacay dagaalkii Beerdhiga. ciidankan waa ciidan tababaran oo khibrad fara badan leh, dagaalo fara badan ka soo galay sida wadanka Suudaan oo markaa abaalgudiyana ka soo helay sida wadanka South Africa iyo magaranayay wadanka sheegay Central African Republic. dabcan inta kaliya ma ahayn sida wargeyskan uu sheegayo Ingiriiska waxa Somaliland kaga dhacday disaster amba mucjiso amba halaag ba kaga dhacay. waxa uu wargeysku sidoo kale sheegaya in korneelka la dhaho sarkaalka la dhaho Blankets iyo ciidankiisi ay daraawiishtu ku odoomiyeen oo surrounded laga dhigay. sidoo kale 180 ciidanka Ingiriiska kamid ah ayaa isku goob lagu dilay, 9 kamidna ay tahay saraakiil cadaan ah. tanna waxay ku tusinaysaa
jabka markaa ingiriiska dagaalkii beerdhiga kaga soo baxay, walow taarikhyahanada ingiriisku siday buugtooda ku qoreen ayna xaqiiqada ay ka hiiliyeen oo markaa ay been ku qoraan buugtooda. dabcan ciidanka intii anfariirka iyo baxsadka ula carartay buuhoodle marka laga yimaaday waxaa jiray ciidan kaloo iyana hobyo ku noqday. ciidankaasi watay sarkaalkan haddeer bilada la siinayo oo la dhaho sarkaalka Cornel Kobe. koloneelka oo markaa helaya distinguished conduct ama bilad sharafeed oo markaa habdhaqameedkiisii u badbaadiyey ciidankii dagaalkii beerdhiga oo loo yaqaano the battle of Erego. ciidankanu markaa cararkii uu geeyey ku celiyey rugtii hobyo oo markaa dabcan waa iska arkaysaa in ciidanka moralkeedu aad u jabsanaa oo markaa bilado moralka loogu dhisayo. sidoo kale ciidamada Soomaalida ay Ingiriiska la socday waxa ay iyaguna ka carareen goobtii dagaalka oo markay arkeen daraawiishtii dhabarkay jeediyeen, iyadoo markaa Ingiriisku uu sheegay in ciidamada Soomaalida aan la isku halayn karin, waana sababta ay Buuhoodle xagga ugu carareen ciidamada Ingiriisku maadaama aysan kula sii dagaalamin karin daraawiishta gobolka Mudug. ciidanka Soomaalida ay wataan aan la isku halayn karin. sidoo kale waxaa yana xusid mudan in marka daraawiishtu ay soo jabiyeen difaaca gaalada ay Soomaalida la socotay Ingiriiska ay ku dhigi jireen waxay tihiin dad diintii iyo dalkiiba khiyaamay oo gaalo ah, iyadoo taasuna argagax ku sii riday ilaa heerka ay ku tilmaameen ciidamada caddaanka ay sheegay baqida ay Soomaalidu daraawiishta ciidamada horgalada ay Soomaalidu daraawiishta ka baqayaan. waxay ku tilmaameen sayidku inuu yahay immortal madhinte. tanina magaranaysa waxay sii anfariir gelisay saraakiisha caddaanka baqdinta ay ka yaabeen ciidamada Soomaalida ay ka baqayaan daraawiishta. dabcan Ingiriisku waxa meeshan maqaalkan ku yaala wax ka duwan ayay buugtiisa ku qoraa oo xaqiiqada waa ay qariyaan. intaa kuma ekaane maqaalkan oo soo baxay bilo kadib wargeyska Ingiriiska sidoo ku qoray waxa weeye dacaayad Ingiriiska ay sameeyeen oo markaas sarkaalkan la dhaho John Bull sida uu sheegayaan uu cagta saarayo amba uu cadaadinayo the irrepressible mullah, wadaadka aan la muquunin karin. dabcan waxa uu sheegayaan oo maqaalku sheegaya in saraakiisha Ingiriiska iyo boqortooyada Ingiriiskuba ay cagta marin doonaan amba ay karaash garayn doonaan awoodda sayidkana ay ku tilmaameen sheegay quraanjo yar oo dhigmiirata ah oo markaa boqortooyada Ingiriiska iyo ciidankooduna ay mar dhow cagta marin doonaan. dabcan waxay ku tusinaysaa markaa sawirkan iyo dacaayadaha kale oo markaa Ingiriiska ay ku dhaqaaqeen markii daraawiish adin wax looga qaadi kari waayey. guuldaradii kasoo gaadhay beerdhiga Ingiriiska waxa ay baday inay markaa propagandada noocan oo kale ay sameeyaan markii ay daraawiishtii waxba iska celin kari waayeen. tanina waxay ku tusinaysaa heerka ay markaa Ingiriisku ay desperate u ahaayeen iyo markaa fadeexadii ay kala kulmeen dagaalkii beerdhiga iyo magaranaysa guushii iyo sharaftii ay markaa ay daraawiishtu kala hoydeen dagaalka beerdhiga ee ka dhacay gobolka Mudug. dabcan guushaas daraawiishta bilaash ugumaysan imaan, rag baa ka shahiiday. fiidkii iyadoo la aasayo raggii dagaalkaas ku shahiiday ayaa sayidku waxa uu tiriyey qasiidadan yar oo af carabi ah, qayb ka midana buugga daraawiishta ay ku qoran tahay: wa amwaatana min khayri ahli almaqaabiri wa axyaa'ana min khayri ahli almacaashiri, oo ah kuwayaga shahiiday ayaa ugu khayroon inta qubuuraha ku jirta, adduunka inta joogtana waxa ugu khayroon kuwayaga nool. hadalkan waxa weeye hadal uu markaa sayidku ka dul yiri markii la aasayey shahaadada daraawiishta. tan markaa waxay ku muujinaysaa markaa hadda isberber dhigtid dagaaladii iyo wixii dhacay wax ka fog xaqiiqada inay tahay waxa ay Ingiriisku buugaagtooda mar walba ku qoreen, iyadoo dabcan 100% aysan magaranaysa run ahayn waxa ay qorayaan wala wax runa ay ku jiraan, haddana mar walba ay runta qoraayaasha Ingiriisku ay ka eexanayeen. taasi waxa weeye mid aan cidna ka qarsoonayn haddaad magaranaysaa haddii loo kurgalo waxa ay qoreen.